السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogtada rag iyo dumar, caruur iyo xoolaba, inkastoo qusayso uun dee inta maaragtay qaangaarka ah dadka waaweyna marba waxaa laga hadlaayo inaan tahay fahmi kara. inuu saaxiib nahay baa wixii weydiiyey maalin dhaweyd, waxaa jirtay tix ama maanso aad tirisay oo ku saabsanayd aragtiyo, ama si kale markaa loo eego adduunyadan iyo uunkan alla inagu umay ka hadlaysay. waa run maansadaas way jirtay muddo hore ayaan soo bilaabay, ilaa haddana waxaaba iska noqotay wax taxana aho marba in ay korodho. hase ahaatee saaxiibkay inta hore u weydiiyey wuxuu yidhi inta hore baaba isoo jiidatay in yaro barnaamijkaygan maxay ahatoy uga dhigayo hordhacna waxay ahayd wax la yidhi guyaal hore, gayigoo abuuraa sama soo gandoodiyo agab gurada sii yaal ayaa lagu garaadsaday. garoo dunidu waa hooy guudka iyo hoosta ah, gogol iyo furaash weyn labadeeda geesood cidna aanay garanayn. garoo dunidu waa hooy guudka iyo hoosta, gogol iyo furaash weyn labadeeda geesood cidna aanay garanayn. mana aha gabaahiir laga guuray oo maran uumiya ku guud nool, tiro aan la garanayn buuraha gushoodiyo godan iyo bad iyo webi inta gabay ahaantood dhulku gaar u leeyahay. mana aha gabaahiir laga guuray oo maran ayuu hordhoc ahaa moogta. marka wartixdaas waa tix salballaada. waxaan maqli jiray dowlad 1990kii uu dhisay genaraal maxamed faarax caydiid, oo uu la dhisay ama ku-xigeenba u ahaa cabdiraxmaan axmed cali oo la odhan jiray salballaadha. dowladda inkasta oo adduun weynuhu kasoo horjeestay oo haddii bayd maayo ay ka saldhigi weyday dadkii deegaamadaas ee weliba ahaa dadkii la jufada ahaa ama la cidda ahaaba genaraal maxamed faarax caydiid iyo cabdiraxmaan axmed cali, cabdiraxmaan tuur. dee magtii bay ka dhigan tahay oo inaan tahay had iyo jeer imika wuxun baan arkaa un wax la tirinayo oo aan nuxur badan iyo macno badan iyo maxaa la yidhaahdaa sal laga tolo aan lahayn. marka waa way tahay in markaan ay wax isbedelaan oo inaan tahay aynu si uun ugu soo noqonno hanaankii hore iyo hilinkii hore, maansanyahanada macnaha leh wax la fahmi karo dadka la hor iman jiray, u sheegi jiray, ku hoga tusaalayn jiray, ku dhiirigelin jiray, ku hagi jiray. xilligii baa la gaaray, way tahayna in maxay ahatoy aynu arrimahaas deeba ka dhigayo aynu ku soo noqonno. oo inkastoo bulshaduba nacday markii la waayay meel fankii lagu soo bandhigo, lagu falaanqeeyo, lagu faaqido, fahankii dadka ka lumay oo social mediada aad moodid in maxay ahaytoy dadkii ku maanguuray, sidii ugu maanguuray. runtii bulshada adduunkaanaynu la qabnaa runtii inaan tahay waxaanoo garaad guura oo gayigeenu de sidii hore uu ahaan jiray xilligii kacaanka oo uu ahaa fanku, wuxuu ahaa
heerka ugu sarreeya, mustawaha ugu sarreeyuu gaadhay, isaga oo habka loo dhiirigelinayay uu dhan qura ahaa oo dhankaasuna ay ahayd ammaan iyo buunbuunin iyo hagid towradda dhankeeda ay maxay ahayd toy had iyo jeer u adeegsan jireen. haddana taa macnaheedu xorriyad badan iyo nafis badan ayay abwaanadii iyo fanaaniintii qiimaha iyo qiyamka lahaa ee xilligaas ay masraxyada iyo goobaha bulshada ku kulanto ay ku soo bandhigi jireen. oo waxay lahaayeen goob tiyaatar ballaadhan oo weyn. inaantay maanta waxaan aragnaa iyada oo la canaananayo, la ceebsanayo, siyaabo badan loo soo maxay haytoy loo xagxaganayo, looba arko ceeb iyo wax laga xishoodo, loo arko diinka bax oo kuwii iyagoon lahayn caannimo iyo garasho bulshada dhexdeeda aan ka lahayn markii hore oo aan cidna aqoonin, markii ay wax ku noqdeen fanka misena maanta u arkaba inay tahay ceeb iyo wax laga yaqiiqsoodo, oo iyagoo hulaaban oo humbusan oo si uun maxaa la yidhaahay u arag xun oo khushuucsan aad moodin in maanta shahaadada loo qabanayo. waa runtii waa ayaan daro. aad baan runtii uga naxaa markaan arko waxyaabahaas oo kale. anigu kulley shaksi ahaan uma arko waxsan, umana arko arrin quman oo dadnimadaada iyo qiyamkaaga iyo muslimnimadaada awalba lahayd in maanta lagu laqimo wax cusub oon lagaa dhigo ruux faasiqa, ruux diinka baxa, ruux ridoobayba marmarka qaarkood u eeg qaabka looga hadlayo, qaabka loo buunbuuninayo, qaabka macsuumadaha gaarka ah ee maxay haytoy macna la-aanta loogu sameynaya aad moodid xusbi sidii aynu arki jiray Soomaalida ama xisbiyadeena lagu yaqaanay qolo kale ka soo baxday oo dabeetana inta la soo dhaweeyay shacabka loo garaacay la soo dhaweynayo ama cid kale lagu xumaynayo oo looga dhigayo inaan toy jabkooda iyo maxaa la yidhaahaa guul la-aantooda. waa nasiib darro aada u weyn in fanka, tixda, tiraabta, gabayga, madadaalada intuba aysan ahayn maanta qaar haysta ciddii dhiirigelin lahayd ee baritaari lahayd inaantay ku dhiirigelin lahayd stagekii ay waataagnaayeen oo aynu ognahay dee maanta waxyaabo badan inay hagardaameeyeen oo ay halkaa dhigeen. si kastaba fanka noocaasa ama maxaa la yidhaha funuunta noocaasa marka lasoo hadal qaado ayaad moodaa in aan ka tallaabo xadka ama aan ka baxo meeshii ay ahayd inaan ku soo hakado. de waa kulmi doonaa, in badan wada hadli doonaa. baraha bulshadana haddeer kolley haddii aan qoraal aan wax kusoo gudbin jirin masraxu waa ii bannaayahay. mashraxu waan filayaa waana idinkala qayb qaadan doonaa. ha yeeshee de waxaan idinkala qayb qaadanaya waa inay wax macno la noqdaan oo bulshada u faa'iideynayso oo bulshada wax u tar laho gaab bannaan oon hore maxay haytoy inaan tay loo gufayn inay noqoto. dee guul iyo goboni baan noo rajaynayaa, mashruuc shifrooqaan noo rajaynayaa.